علمي وحو كابد بادنا يا شكيغا إيا شبهاتك ما أنت إلا فرها هيو أو مسلمين تلقوا دحباهنا هيو أو براها بلشة الله صادقة يو خطرت أي علمي وكابد بادنا يا ولذلك قال هذا إيا أعداد وصدح شيء أي وايهن آد وفافيان وحلا يراهدو الحاد نمو أو قفك الله الربا إنه ملحد نقضه وحبا عن رميسنين أرنك الله بعض إفافيان وحويان قف كان إنه نقضه قف آمنة أو رمية عيسى إنه يهي إله أرنك صدحادي والتشيع شيء النمذا أو الله فافين أو صحابة النبي أو الله عاية أكبر لابطه قرآن كل قطوه مايين وناقص ياي كل عكسته صدح لا الريموت أيا براها برشة آدو ياله صدح لا وحى أقبلي أو قاتي ضد صومالي أو وحويان مسلمين أو وحويان والد كون مسلم أيهين أو هري وحان أنو من سنين أيا هذا أقبلي أو قاتي waxay sameeyeen inay meel badan u sameeyaan fantasiya ay iskugu keenaan dadka qaatay masiixiyada oo oranaya ciise waa ilaah markaas meel badan wadamo badan inta laga soo aruuriyo marba meel la geeyo ayaa baraha bulshada la soo dhigaya ayagoo hadlahaya waxaan aaminsanahay ciise inuu yahay badbaadiyaha ilaaha aan caabudayno dadka waxaan ugu yeerayaa ciise inay qaataan asaga nabad ku jirta asaga nolosha ku jirta arinka isaga aad iyo aad baa la iskugu taxalluujiyay dadkaas in la isku xiro gaaloobay oo ciise ilaah u aaminay oo wada la maal galiyo oo idaacadaha iyo meel walba la soo dhigo oo af Soomaaliga ay ku hadlayaan ay ku dhasheen dadkaas gaaloobay aad baa la iskugu xiraya waxaana dagaal loogu jiraa in dad badan oo muslimiin oo dhalinyaro oo sidaas oo kala la gaalaysiyo ilmaha yaryarka ay waxa weeyaan habeen iyo maalin waxay ka daawanayaan Facebook-yada iyo YouTube-ka ka daawanayaan dadkan oranaya ciise waa ilaah ciise aan qaadanay waan ku badbaadnay nolol fiican baan ku helnay amni baan ku helnay qofkii caamiga ahaa oo dhalinyarada waxa weeyaan si sahlan bay u saameynaysaa kuwa kale ayaa soo baxay oo yiraahda waxba ma jiraan waxa weeye caalamku wuxuu isku haysto oo la isku haysto oo lagu dirirahayaa waa dhaqaalaha iyo siyaasadda un weeye wax diin la yiraahdo la isuma haysto wax diin la yiraahdana kaba taagna annaga iyo gaalada waxba iskuma haysano xaqiiqada marka laga hadlo waa siyaasad iyo dhaqaale cod loo soo dhibay ayuu ku hadlayaa kitaab ilaahay mawran akhrisan quraanku waxa uu sheegay mawna fahmin waxa ilaahay u abuuray ma fahmin cadawga ilaahay uu sheegay nabi maxamedna uu sheegay ma uunan baranin dadka la raba inuu xiriir la yeesho iyo dadka la raba inuu gooyo ma kala baranin waxaan oo dhan waxay ka imaanayaan oo loo soo dhiibayaa qof tacliimta maadiga wax un ka faa'iideystay ayaa loo soo dhiibayaa waxa la isku haystaa waa siyaasad iyo dhaqaale weeye adduunku wuxuu isku haystaa wax diin la yiraahdo adduun iskuma haysto ilhaadnimadaasna aad baa loo faafinaya bal waxay gaartaa arrinka isaga inay saameyn weyn ay ku yeelato dhalinyaradii Yurub la geeyay oo quraanka la barayay oo guryaha lagu hayay nin macallin ayaa aad uga sheekeeyay rag kale badanna waa iga sheekeeyeen ilmaha quraanka loo dhigay ee Yurub joogo dugsiyada lagu hayo oo la barahayo in badan ilaahay ma rumaysna mana aaminsana janno iyo naar qaar baa hooyooyinkood macallinka ku soo dacweeyeen oo ay leeyihiin gabadhaani waxay leedahay ciise waa ilaah gabadhaani waxay leedahay ma taqaanaa janno iyo naar ma jirto sheekhow macallin bal arrintan kala hadal macallinkii markuu waraystay ilmihii dhamaacod bay u qaadayaan maxaad quraanka u dhiganaysaan oo halka suurad hebla adigu maraysaa adna suurad hebla maraysaa waxaana leedahay jannada naar ma rumaysnin ciise inuu ilaah yahay baan aaminsanahay maxay tahay waxay ku jawaabayaan kulligood hooyo aabba raba inaan quraan dhigano inaan xijaab gabadhu ay qaadato inaan tukano hooyo aabba raba ayaga talada iskale intaan 18 sano ka gaarayo ayaga ayaan dartood u yeelayaa 18 sano markaan gaaro anigu xor baan ahay markaas waxay cadaysanayaan waa ilmo quraan loo dhigayo oo qaarkood suuratul kahfi ay marayaan oo qaarkood suuratul nahl ay marayaan oo qaarkood 10 juz ay dhaafeen oo tukanahaya oo quraankii akhrinahaya oo soomahaya oo salaadahaya ayaa waxay la soo taagan yihiin ciise waa ilaah janiya naarnimo wax jira ma jiraan oo goormeen cilaansan doonta waxaan cilaansan doonaa 18 sano markaan gaaro oo aan ka maarmo hooyo in la noolaado aan xor u leeyahay in xaqayga qaadanayo oo meel aan degayaan cilaansanay hadda Soomaa rabitaankooda weey
caadadoodii dhaqankooda ay yaqaaneen weeye ayadan u yeelahay dadkaasi dhalinyarada aad bay u badan yihiin saamaynta waxa ku yeeshay waa macallinka iskuulka ma ahan macallinka quraanka dhigahaya oo maalinta iskuulku fasaxa uu yahay kaliya ilmaha u imaanahaya oo quraanka u dhigahaya oo xoogaa yar u sheekaynahaya oo saacadaas u sheekaynaya mushaar yar ka qaadanaya oo lafdiga quraanka u meerinaya ma aha waxa saamayn ku yeeshay macallin iskuulka jooga oo luqadooda si fiican u fahansiinahaya oo daaciya oo dadka ugu yeeraya ciise waa ilaah ayaa iskuulka ugu dhigay oo baray sheeka ahaanna ku geliyay kana dhaadhiciyay oo buuxiyay maxay marka ku taraysaa inuu hal maalin asbuuci ama laba maalmood aad tiraahdo quraan baan u dhigahayaa inta kale ilmaha gaal u haysto oo ka dhaadhicinayo mabdiisi ilmahaas dadkii dayacay oo halka geeyay ilaahay hortiisa mas'uuliyad baa saaran waana la weydiinayaa ilmahaas gaaloobay kuwa hadda ku sii hayo ku cilcilinahaya oo iskuulada gaalada u dirahaya oo ciise waa ilaah loogu dhigahayana ilaahay waa weydiinaya maalinta qiyaamaha ilaahay wuxuu laqad kafara alladina qaaluu inna allaha huwa almasiix ibn maryam kuwa yiri ciise waa ilaah waa gaaloobeen ilaahay baan ku dhaartay waa gaalo ogaada waa kufriga midka ugu weyn ciise waa ilaah ama waa ina ilaah ama waa thalithu thalatha kulligood kufriga gaalnimo weyn hooyadiis waa ilaah maalinta qiyaamaha ciise la soo taagaya iyo hooyadiis markaas ilaahay wuxuu leeyahay ciisow anta qulta linnaas ittakhiduni wa ummi ilaahayn min duni allah ciisow dadka ma adaa ku yiri aniga iyo hooyaday laba ilaah naga dhigta ma adaa ku yiri qala subhanak ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إله حمان أذا كوفا حق مله إن أنت أسكره وحان حقها إنه مشيء وما أنا بهن إلا وحي يا مرتمها أن لك لي عابد أنا ربي يا عيدك ربي جينا ذاتك وعيسى إله يري محكمة داسة عيسى أيكوك لبحها هيا ما أنت ننك أوجينا هيا نعفك للرادنا هيا دل با كل ماضي ضد نمدي با كدير أنتي دين الآن با كل عضي عقلي سيبا دور صومي أولاد إلهي كعبوري إنه أقبله إن سكول كله قد عيسى وإله قال لما إن لو قد هوين كفاره قاقا ونقيان هبين إيمان أي كفر يقول لقنا هيان نين كفير سنة هيا رقم معها ضعيف وي قفلي تنوي ضمير كنوع عاسنا وضمير لنتوي نباك سو تجي هل كانوا يقولون مسي صحابي يقولوا سو تكد طوال الماضي هو بديريو كسوتك فراك لبح مركو صونا كحين وايي وحنا كبدلي وايي وكسو دقاجي waxa igu naxdin badnaabiye maalintii aan ka qoostay ina halka joogo wiil 7 sano jira markuu iskuulka intuu ka yimid yiri aabe ciise waa ilaah Soomaa waa badbaadiyeena Soomaaha oo ay maya ilaahay baa abuuray ciise allahi dhul iyo samaawaadka abuuray baa allah ciise ilaah maaha markaas yiri miyaadan ilaahay ka baqahayn maxaad iigu diraysaa meel la leeyahay ciise waa ilaah miyaadan ilaahay ka baqahayn 7 sano ayuu jira markaasaan iliniga timid biyo naxay markaasaan taladii maamadii la waayay isla fahmi weyn wax kasta aan ku qancin waayay si kasanta ayaan mana ka haysan karo aniga nafteeda la soo cararay bay badbaadinay soo ma jeed ilaahay miyaadan ka baqahayn ayuhal ab ilmaha halka ku jooga oo kuwa awaha u tahay oo jooga kuwa halka ku dhaldashay oo jooga adiguna halkan aad joogtid ilaahay aad ku caabudaysid ina halka u daysid oo gaalnimo la baro miyaadan ilaahay ka baqahayn shakigaas iyo shubahadaas la abuuraya baraha bulshada la haysta waa in la helaa wacyi marka ka bedelan ilmaheena halkan jooga loogu yimid halkan ayagiiba halkan waxa lagu barahayaa wax kasta oo xun lagu barahayaa waa in ilmaha lagu talaala aqeedada saxda waa in lagu talaala walidaalika maanta ma anfacayso in la yiraahdo ilmaha quraanka lafdigiisa kaliya loo dhigay ma soconayso saxna ma وإن المها يرير كعا أو قرآن كلا براهيو معلنك وقدر عقيدة أو برا إلهي حق أوليه إلهي كلية إنه يهمتك حق أو العبودية عيسى وحى إلهي وكيري وإن عقيدة لقط الله قال هذا حمان تودا يبغض جودا ينعيب كود إن الدين تهي وإلهي لو قد وانا يا إلا النعه وإن لقط الله مؤمنين تإلا تشعل هذا وإن لقط الله
قف كان مبدأ الربا إنه حنباره أو رسالة دعه وإن المها يرير كان للطلالة وعقيدة الصحراء هاي لبرا ودين كيل لبرا سيهدو تأي أقبض بادي كران شكي جي الشبهة أي كينيان قالوا أي فافينيان وأي كينيان محايا لي المها لوجو ما كالميو تعليم تديني جاه محام برنامج المها قرآن باود يرتي أفر يتوانك يبقول كل ميالي فاتحدا معناه هذا ما يقاني wax macnaa oo ilaahay uu subhanahu wa ta'ala ka aamina ma aadan barin markuu quraanka dhameeyay lafdigiisina iskuul baad geys iskuulkii buu ka baxay jaamacad maadiyaha sii gelis hadhowto wuxuu soo istaagay asagoo mulxida oo diinba aan rumaysnayn maxaa yeelay ma aadan barin baba deegaankii wuu kala jooga kuwa kale jahligoodu wuxuu gaaray oo deegaankii jooga oo dalkii jooga inay leeyihiin Allah waan jecelnaa rasuulkana waa jecelnaa haye ilaahay baan caabudaynaa رسول كان عابدينا أولياء عابدينا أبيدا عابدينا قف كان نوع عاصم الدين بالبري مولد بالبري اللي يروينه يوحلا من هذا البري إلهي عابد كل اسمه عبادة الله ما برين بابا وهذا أركيسين وحيالها الله سودي هاي مالمه بوق وشري مظاهرات يدو أي شرين هو يوين أو لتاجن إلهي من عابدينا أولياء رسول كان عابدينا ما أولياء عابدينا أبيدا عابدينا قف كاسي هدو قال ملك لما دينا يا بكرة جهل بهير كاسو كتشوجا هذه هو يوين كسايهين أو أبيال بدساسيهين أو علمه دليل أساس أيهين ما حيكو قادنا يسا كوان شك شبه هذا الله صابري أو دعاء أو الله صادره هيو أو إنه هبل أو ديجان كإيمان هيا إنه دتك قال يسيان إلهي كشك السيان قرآن كشك كجليان ما حيكو قادنا يسا وحب الله ما مبرين ببه وأريخ خطر وتاجموي ولا ليال المهنة أين برنا دينته علماء waxay yiraahdeen baahida cilmiga loo qaba way ka weyn tahay baahida loo qabo cunnada ilaahay baa mas'uuliyad ku saaray hadaadan maadi aadan barin ee diin aad bartay aakhira lagu qabsan maayo laakiin hadaad waxa weeyaan maadi aad bartid oo diin ilaahay aadan barin aakhira badbaadi maysid wa inaan ku didaalna macaahida sharciga ilmaha inaan geeyno xalaqaadka cilmiga oo diiniga inaan geeyno إلى أي صوم مران أو علمك أي برتان أن المادي أن الجين أو أن بري كو إن كدقنا إن برتان حق إلهي وكلية حق الرسول كلية صلى الله عليه وسلم حق المسلمين تو أي كلية وإن برنا عدو جود وحقويه هي أو فهم سينا مركز إليه الرصيد علمي كبعد المادي وحو برنا هيجيه لكن علمك المها له علم شرعك هلا بر معلمين تا قرآن كدقة هيا وحا ضروري علم إني صوت صاران رسالة دا إلهي حنباركة أو كتاب كان إلهي معنيه سفهم هيا أو اللغة دي عربية فهم هيا أو قرآن كي فهم هيا أو أحاديث فهم هيا أو عقيدة دي أي كدي سنتهي وإن معلمين تدكسيو دا القرآن كاللفظ أي أبدلان معناها إني بران أنك وإن قد دالا إلهي نوافتيو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.